ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قصة زينب وصفي عروب الله وتوات المركة وحوليها هاي ورقيس كنك قري زينب أرنتدي آد بارودة وقالي مالي والبوحة باريني زينب حالة هذا وحا وأها أنك وآبهد مالي بسؤال ويدينينا مرنا بيالها كلا سو ويدينينو وحان أغاني واربحين آديات متففترا دور فديو عن لقاضنا كدب زينب إني لكلنتي دور دليراء وصاحبة إلا تهي لنا دكتا جامعة لكن كنت تخصصي هذه يجار إن أي دينت إسلامك دفاعان وسيدا أي دينت وقصوا اللابتي كريشتانك يكشي كيريا كوا أيا سبب وها زينب إني كسوا اللابتو قريدي يدين كيري ودن كيري برسها أهاتي سينا مركي دبوحا كدعي جرائدك ودنك متكمدا إن لغسو قري زينب إني قرقودا أقول لابتي سي أي رير كيدا أكريشتاميسو taasoo zaynab gabadhii ku kalliftay markii dambe inay si degdeg ah qalabkeedii u qaadato ayna u aado wargeyska halka uu ahaa ayna u soo aragto in ay zaynab isdifaaci karto wixii ay qabtayna ay banaanka soo dhigto waatan marka wuxuu leeyahay zaynab baan u dhaafaynaa hadalka waxay tidhi gabadhi zaynab iyadoo ka sheekaynaysa waxay leedahay kalsoonina ku qabta nafsadeeda waxa ay ku hadlaysana aad ugu dadaalayso waxay leedahay gabadhan zaynab sheekadeeda ay ku bilowday waxaan ku noolaa nolol caadi ah qoys diinta islaamka haysta laazim ku ah diinta islaamka waxaan ahaa gabar had iyo jeer ku xiran masaajida xaafadanadii ku yaala waxaana ka barta culimmada masaajidaasi ugu waaweyn waxay leedahay waxaan qur-aanka xafidsiin jiray ciyaalka yaryarka xaafadda degan waxaan dhowr cashir iyo kutub u sharaxi jiray gabdhaha muslimaadka awoodda aan u haynin inay masaajidka tagaan waxay leedahay xilligaa isaga ah waxaan ku xirnaa culimo dhowr ah oo aan saa u fara badnayn oo aan laazimay inta kalena aan kaga soo go'ay aan isiri iyagan ayaa muslim ah masaajidda kugu dheganna u dhow iyagan un diinka ka baro wixii su'aalo shakiga gala ee arrimaha diinkana iyaga ayaan weydiin jiray si aan gabdhaha muslimaadka wax u akhriyo markay i weydiiyaan uga jawaabo waxay leedahay dhowr su'aal baa isoo hor istaagay jawaabna aan u waayey xilligaa isaga ah waxaan bartay 2 gabdhood oo jaamacadda ila dhigta oo magaceeda rihaan iyo wahba ku sheegtay ayaan kala bartay waxaana ogaaday markii dambe inay yihiin gabdha kirishtaan oo diinka islaamka aan haysan mar walbo aan la sheekaysto su'aalo dhowra aan isweydiino oo anigana ay ii muuqdaan waxay bilaabayeen su'aalahaasi su'aalo ka badan inay ii soo bandhigaan ay yiraahdaan annaga lafteenna waxaas iyo waxaasi ayaan maskaxda ku haynaa oo su'aalo ah waxyaabo badan oo aniga ishaki gelinayay iyo waxyaabo aan shaki iiga jirin oo ay ka mid yihiin shakhsiyadda nebi moxamed sallallahu alayhi wasallam iyuu yahay sunnada nebi moxamed booskee ayay islaamka ka taagan tahay sidee loogu dhaqmayaa waxyaabahaas iyo su'aalooyin cusub ayaan maskaxdayda ku jirtay waxaan la aadaa culimmada masaajidkii aan ku xirnaa jawaab iqanciso waan ka waayey qaarkood waxa ay bilaabeen markaan su'aasha weydiiyo canaan inay ii soo jeediyaan igu tuhmaan hadalka su'aasha aadna weydiinayso waa hadal gaalnimo keeni karo mana la weydiin karo qof caalima hadalkaasi kale hana weydiin su'aalo noocaasi jawaabtooda ay siiyeen waxay leedahay calaama su'aalkii baa maskaxdayda ku batay xilli aan bartay rihaan iyo wahba iyo 3 wiil oo dhalinyaro ah iyo 4 gabdhood kale oo jaamacadda iyagana dhigta ayaan bartay kulligooda markii dambe waxaan ogaaday inay kirishtaan yihiin waxay ii sheegeen laftirkooda inay xaaladan oo kale soo mareen diinta islaamka shaki badan ay ka qaadeen markay weydiiyeen culimmadana wax uga jawaaba ay waayeen wargeysku wuxuu leeyahay waxaan weydiinay ma isku dayday culimmada islaamka ku takhasus su'aalahaaga qaarkood inaad weydiiso waxay tilmaantay inay ku gaabsatay keliya culimmadii ay ku xirneed masaajidka imaamka iyo sheekha ka ahaa dariskooda inay keliya weydiiso hadalkeeda waxay kusii dartay xilligaa isaga ah waxaan booqashooyin u aadi jiray gabadhii hiba ahayd gurigooda anigana su'aalo badan maskaxdayda ay ku furan yihiin culimmaduna ay leeyihiin su'aalaha hana weydiin haddaadna weydiiso gaalnimo ayaa ka dhalanayso gurigii saaxiibadayda waxaan ku bartay bay leedahay baadariyaasha kirishtaanka kaniisadaha ka mid ah
ayaan ku bartay waxaan ogaaday markii dambe gabadha reerkooda dhan inay kirishtaan yihiin markii ay saaxiibadayda aan la fadhiyey baadariguna uu nala fadhiyo bay saaxiibadayda waxay u soo bandhigtay baadariga gabadhan saaxiibadayda weeye su'aalo badanna diinta islaamka way ka qabtaa ee u sharax baadarigii baa ila hadlay wuxuuna ku dadaalay inuu aad iyo aad isu ilaaliyo hadallada uu ku hadlayo wuxuu isbuug oo diinta kirishtaanka ka hadlayo waxaan bilaabay bay leedahay marka hore inaan dhagaysto su'aalihiisana aan nowd ku qorto kadibna aan kala doodo laakiin waxay leedahay xujo xoog badan aan kula dooda ma aanan haysanin sababtoo ah culimmadii aan wax ka baranayay ima ay siinin xujooyinka aan isaga difaaci lahaa wixii intaa ka dambeeyey waxaan bilaabay inaan ka go'o masaajidii iyo culimmadii ku-xirnaanshahooda iyo su'aal weydiintooda waxaan bilaabay inaan qaarkood waraaqo u qoraan inaan baadari hebel hadalkaas ayuu ku hadlay maxaa ka qabtaan waxa ay igula taliyeen inaan ka fogaado la hadalka baadariga ayaguna waxay diideen inay iiga jawaabaan su'aalaha markii dambena waxay ii sheegeen fitna diimeed inay ka dhacdo waddanka ayaan diidaynaa qofkii kula hadlo diinta kaaladooda waxaad tidhahdaa lakum diinukum waliya diin waxay leedahay xilligaas isaga ah diyaar uma aanan ahayn in aan naseexada ay ii soo jeediyeen culammada aan qaato waxaan mooday bay leedahay inay isdhiibeen kiristaankana aysan diin ahaan gaarin ama aysan la doodi karin waxaan isweydiiyey sababta uu ninkan baadariga diinkiisa intaan geesinimada uu ugu doodayo dadka ugu sheegayo culammada islaamkana ay diintooda ula gaabsanayaan ay leeyihin lagama hadli karo maxay tahay ayaan isweydiiyey waxay leedahay zaynab fahamkaygii yaraa caajiska ahaa ee aanan awoodin inuu si fiican u fakaro xilligaa isaga ah waxa uu i tusiyey inay islaamku caqiida ahaan ay yar yihiin aysan caqiidadooda xoog badnayn gaar ahaan mashaaikhdii iyo culimmadii qaarkood ii diiday in aan la kulmo si gaara ula kulmo dhowr su'aalood aan weydiiyo iguna yidhi fakarka aad la timid waa fakar shaad ah ummadda aan wada qabin wakhtigayga kuma dayacayo igu yidhi isla xilligaa isaga ah jawaabta waxaan ka helaya baadariga markaan u tago weli isagoo faaruq iyo xilliyada qaar isbuuc walba waxaan kulmi jirnay 4 jeer si uu su'aalaha aan qabo iiga jawaabo wuxuu igu dhiirigeliyey inaan qabsaday diinta kirishtaanka ah xilligaa iyada ah gabdhihii saaxiibaday iyo wiilashii 9 gaaraya kulligooda waxay ahaayeen dad kirishtaan ah waxay leedahay dagaal baa dhexdayda ka dilaacay gudahayga waxaan isweydiinayaa shaki badan baa ay galay ilaahayga la sheegayo horta ma jiraa baan isweydiiyey marka dambe waxay leedahay waxaa isbedelay muuqaalkayga waxaa isbedelay fakarkayga waxay leedahay gafka aan lahaa waxay ahayd khaladka aniga aan ku jiro reerkayga uma aanan sheeganaynin waxaan su'aalo aan isweydiinayay aan la kulmayo wax ahlu cilmi ah ama reer diin yaqaana aniga aan ula tiigsaday arrintanna ma jirto waxay leedahay waxaan ka istaagay dhegaysiga mashaa'ikhda hadalladooda ama la kulanka baadariga intuba waan ka joogsaday waan istaajiyey xilligaa isaga ah saaxiibo dhowr ayaan lahaa oo kirishtaan ah qaarkood waxa ay u safreen dibadda waxaa ila soo xiriiray gabadhii saaxiibadayda riixaan ahayd taleefonka iga soo wacday waddanka Canada si ay iigu sheegto xaaladeeda inay fiican tahay kadib markii ay ka safartay dalka Masar waxay ii sheegtay in ay waxbarashadeedii halkaa ka sii wada jaamacad ka dhigato dhowr muxaadaro iyo waxyaabo ku saabsan diinta kiristaankana ay ka jeediso internetka meelo ka mid ah waxay iga dalbatay inaan internetka soo galo meesha ay ii tilmaantay si aan u wada xiriirno u sheekaysano waxay leedahay magaca waxaan samaystay Lucy 1982 xilligaa isaga ma aanan garanaynin sida loo isticmaalo baaltooga aad iyo aad uma aanan garanaynin waxaan ka codsaday qaar ka mid ah asxaabtayda in ay kaalmeeyaan caawiyaan sida loo isticmaalo inay ibaraan waxay leedahay waan galay qol waxaan galay magaciisa uu yahay hadduu ilaahay nala jiro yaa naga soo horjeegsan kara iyo qol ciwaankiisa uu yahay Muhammad khalqiga ma u sharaf badnaa waxay leedahay waa qol kirishtaanka uu leeyahay waxay la imaanayaan axaadiis iyo warin ay soo wariyeen nebi Muhammad ay ku tilmaamayaan horeyna aanan u maqal